السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا ku xiran kanalka Dooreysatiya kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta oo uga hadli doono faa'iidooyinka ay leedahay koostada daawooyinka iyo nafaqada ugu qarsoon ee koostada ee laga helo koostada waa caleemo cagaaran oo aad looga isticmaalo meelo badan oo dunida ka mid ah koostada waxaa loo isticmaalaa siyaabo kala gedisan sida cunno ahaan iyo cabitaan ahaan ayaa loo isticmaali karaa koostada waa khudaar ay ka buuxdo maadooyin aad jirka ugu baahan yahay hadii uu qofku uu waayo khatar gelin karta caafimaadkiisa waxaana ka mid ah zinc, protein, magnesium, copper, calcium, iron iyo wixii la mid ah iyo fitamiinaad kale oo jirka u baahan kuna jirto koostada waxaa ka mid ah sidoo kale vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K, vitamin B6 iyo wixii la mid ah koostada waxaa aad ugu badan maadada jirka ka saarta sunta ee loo yaqaan antioxidant folate taasoo aad ugu muhiimsan wadnaha iyo xididada dhiiga maadada loo yaqaan magnesiumka ee ku jirta koostada waxa ay ka qayb qaadataa kantaroolka cadaadiska dhiiga sidoo kale koostada waxa ku jira ama ku badan beta carotene, lutein, xanthin oo ah maadooyin aad ugu wanaagsan indhaha oo aragga ay siyaadiyaan ugu dambeyntii koostada waxay aad ugu wanaagsan tahay kana hortagta calool fadhiga iyo dheefshiidida sidoo kale waxa ay u wanaagsan tahay waxayna aad ugu wanaagsan qofka qaba gaaska